kulansi ballaaran loo soo agaasimay oo loogu gogol xeeraya shir dhaqameedka ka dhici doona goboladani galbeedka Somaliland ayaa maanta lagu qabtay hoteelka Rees ee magaalada Boorama waxaana shirkan ka soo qayb galay guddiga beelaha Gadab Guursi oo horkacaya gudoomiyaha golaha dhaqanka ee beelaha Gadab Guursi iyadoo sidoo kale ay ka soo qayb galeen cuqaasha salaadiinta waxgaradka iyo aqoonyahanka haweenka iyo budhaweynta ku dhaqan magaalada Boorama iyadoo sidoo kalena meesha ayna ka maqnayn ganacsatada iyo qurba joogtu waxaana shirkan lagu gorfeynayay sidii meel la isugu dhigi lahaa sharciyada iyo qawaaniinta lagu hagi doono shirkani ka dhici doona dhawaan galbeedka Somaliland waxaana madasha ka hadlay salaadiin uqaal waxgarad aqoonyahan culimaadudiin ganacsato iyo qurba joog waxaana hadaladoodii kamid ahaa haweeneyda muddo la soo eegayay waa warbaan laga sugayay warkii laga sugayay baa go'aansanay haddaan hay'adii la sugayay inaan u soo bandhigno bulshada kala duwan qaybaha bulshada kala duwan oo soo bandhigno oo tala geystaan baan go'aansanay waxaan go'aansanay kubriyaha laga sugayay ama ku baaqaynay midnimada Gadab Guursi iyo darihiisaba sidii meel loo joojin lahaa lama taabtaan iyo lama dhaafaan baa u yeelan lahaayeen in loo aasaaso ama loo ceeliyoono in shirweyne Gadab Guursi sidoo ku dhici lahaa la qabto sharaf bay noo tahay maanta inaan qaybihii kala duwanaa ee bulshada ee beelaha Gadab Guursi inaynu maanta halkan isugu nimaadno waayo muddo dheer bulshada qaybuba isku iman jiray oo arrimo gaara isugu iman jiray oo loogu yeeri jiray maanta way ka duwantao waxaad moodaa in qaybihii bulshada oo dhan idin nagala joogto yani wuxuu masalayaa maanta shirweynaheenii oo kale waxba isku dayeen oy tegi waayeen lama odhan hadda ka hor hadalkaa maanta halkaa lagu hayaa waa hadal weyn maqalkiisu wuu weyn yahay hadduu sidaa loo yidhi u soco waayana waxay noqonaysaa nabur nagu dhacay bay noqonaysaa nabur nagu dhacay buu noqonayaa haddaan waxadisno oo wixii higeli waayo waa nabur nagu dhacay hawl hore noo diray may jirin maanta hawshu bay taagan waxaan aad u bogaadinayaa guddiga dhaqanka golaha dhaqanka halkaa soo fadhiya in aan isku hambaliyeyno inaan diyaar u nahay qaybteeda inaan ka qaadano in qoraalada iyo wixii talooyinana aan gacanida ka siin doono aad baan u bogaadinaynaa hambaliyeynaynaa shirweynaha beelaha Gadab Guursi oo in badan odayaashu ay ku mashquulsanaayeen imakana ay noo soo bandhigeen laga sugayo meesha lagu qaban doono iyo kaalinta la qaban doonana la sugayo marka runtii ugu muuqata aniga halkan inta inaad daba sugaysaan inaan meeshaada sheegno ama kaalinta inta halkan kuma ay jirto laakiin waxa weeyaan islaam arko waa shay loo baahan yahay guud iyo dibadba waa laga raaliba laga yahay waxaan aad u hambaliyeynayaa waxgarabkayaga ama odayadayada gartay inay madasha naga soo qaybgeliyaan anagoo haweena waato aan maray taariikhda uga dhicin aad baan u hambaliyeynaynaa waxaanu leenahay hambaliyaad ku leedihiin kollaydana waxaynu ugu horeynaa inu hormud u nahay dadka Soomaaliyada inaynu waxbarno waxaa farxad gaaraya waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinayaa inaan maanta idinkaa soo qayb galo shirka wadatashiga beelweynta Gadab Guursi ee halkaan maanta aynu u fadhino gobol xaalkiisa oo dabcan berrina la soo gabagabayn doono qodobo dhaxalgala oo inaa ka soo bixi doonaan oo dabcan la sheegi doono waqtiga la qaban doono goobta si kastaba ha ahaatee shirkan maanta ka dhacay hoteelka Rees ee magaalada Boorama ayaa waxa uu noqonayaa shirkii ugu horeeyay ee noociisa ah ee ay isku raaceen guud ahaan beelaha ka soo jeeda goboladani galbeedka Somaliland wariye Cabdi Casiis Asad Muuse shabakada caalamiga xeega news.com magaalada Boorama.